madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madax ka tirsan dowlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimadda Muqdisho ayaa kulamo ku yeeshay saacadihii la soo dhaafay xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya waxaana ay ku heshiiyeen xilliga ay qabsoomayso doorashada baarlamaanka iyo tan madaxweynaha dalka. Wararka laga helayo kulanka ayaa waxa ay sheegayaan in madaxda ay ku heshiiyeen kuraasta ugu horeysa ee doorashooyinka baarlamaaniga gaar ahaan tan aqalka sare oo la sheegay in la dooran doono 15 Oktoobar ilaa 25 November sanadan 2020 halka la isku raacay in doorashada kuraasta golaha shacabka ay dhacayso 15 November ilaa 15 Janaayo. Sidoo kale xogta la helayo ayaa waxa ay sheegayaan in doorashada madaxweynaha dalka ay dhacayso 8 bisha Febraayo sanada 2021 isla markaana madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku adkeystay in waqtigeeda aysan dhaafi doonin doorashada Soomaaliya. Sidoo kale wararka ayaa waxa intaasi ay ku darayaan in guddiga farsamada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo lagu heshiiyay isla markaana dhawaan la soo magacaabi doono saamileyda siyaasadeed ee ku sugan gudaha dalka kuwaas oo ah kuwa doonaya inay u tartamaan xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa hore rajo xumo uga muujiyay in xukuumadda ay sameyso muddo kororsi balse madaxdan ka tirsan dowlad goboleedyada iyo madaxweyne Farmaajo ayaa meesha ka saaray waxaana ay ballan qaadeen in doorashada waqtigeedu ay dhici karto. Haddaba hadalladan ka soo baxaya madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ayaa laga filayaa inay noqdaan kuwo miro dhal ah isla markaana ka yoolgaaridda ama ka miro dhalinta shuruudihii isla markaana ballanqaadka ah in doorashada waqtigeedu ay ku dhici karto. Haddaba haddii doorashada waqtigeedu ay ku dhacdo ayaa madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay u noqon doontaa ammaan taas oo ku aadan in doorashada waqtigeedu uu ku qabtay walow madaxweyne Farmaajo 4 sano ee xilka uu hayay boqolkiiba 75 oo ku fashilmay wixii oo u ballan qaaday dalka taas oo ugu horeysay dhanka amniga dhaqaalaha siyaasadda dib u heshiisiinta maadaama iminka dalka goobtii oo ka qaaday madaxweyne Farmaajo ay ka hooseyso waxaana weli socda dagaalada aan kala go'o lahayn oo ka dhacaya gobolada ku tirsan magaalada Muqdisho oo dowladda Soomaaliya ay maamusho. In al-shabaab ay dib u soo xoogeysteen isla markaana deegaano badan oo ka tirsan gobolada shabeellooyinka ay dib u qabsadeen maadaama madaxweynaha Soomaaliya xilliyadii kaambeedka uu ku jiray uu cadeeyay in 2 sano gudahooda al-shabaab oo gabi ahaanba kaga saarayo Soomaaliya balse arintaasi ayaa madaxweynaha Soomaaliya waxba aysan ugu qabsoomin iska badaa inuu ka saaray waxa ay dib u qabsadeen al-shabaab deegaano kale oo ka tirsan gobolada shabeellooyinka.